hogaamiyayaasha Soomaalida ee ku midaysan madasha wada tashiga qaran oo muddo 3 cisho magaalada Muqdisho uga socday shir lagaga hadlayo doorashooyinka iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa maanta shirkooda soo gabagabeeyay. madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu qabtay kulan lagu soo bandhigayay war murtiyeedkii kulankaasi laga soo saaray oo goobjoog ahaayeen madaxda dawladda dhexe ee federaalka iyo hogaamiyayaasha maamul goboleedyada. Daawud Awis jaamaca fayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa warbaahinta u aqriyay war murtiyeedkaasi. dhismaha aqalka sare golaha shacabka qaran wuxuu ka horeyn doonaa doorashooyinka aqalka hoose. 30% kuraasta aqalka sare dawlad goboleedyada iyo kuwa dhismaya waxaa si gaar ah lagu qoondeeyay haweenka tartamaya. golaha fulinta ee dawlad goboleedyada waxay kursi kasta u soo magacaabayaan ugu yaraan 2 musharax oo tartamaya. baarlamaanada dawlad goboleedyada ayaa u codeyn doona kursi kasta gaarkiis. golaha fulinta ee dawlad goboleedyada waxay kursi kasta u soo magacaabayaan ugu yaraan 2 musharax oo u tartamaya. baarlamaanada dawlad goboleedyada ayaa u codeyn doona kursi kasta gaarkiis. dawlad goboleedyada hadda jira ama dhismaya waxay sameynayaan qaab ay kuraasta ugu qaybiyaan beelaha dadiyowga ama deegaanada. qaabkaasi oo ah mid isku dheelitiran oo loo wada dhan yahay iyadoo la hubinayo in dadka laga tirada badan yahay helaan matalaad ku filan. maadaama ay Somaliland ka maqan tahay ka qaybgalka hanaanka doorashada xubnaha aqalka hoose ee matalaya Somaliland, waxaa lagu dooran doonaa goobta isku raacaan madax dhaqameedyadii Somaliland ugu jira 135 xubnood ee ka tirsan odayaasha dhaqanka. madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabadaasi hadal ka jeediyay ayaa sheegay Soomaaliya maanta waxa la qaabeeyay sida ay wax u dhacayaan hadii alla yiraahdo 2016 oo ahayday mid culays badan ku hayday dadka Soomaalida ah iyo siyaasiyiinta gaar ahaan laana marka aadan garanaynin waxa soo socdaa culayskeeda iyo waxay lahayd dibkeeda. dad badan oo Soomaaliya joogo ama siyaasiyiin ama shacabka kamidana waxyaabaha ay dareemayeen culays inay waxay ahayd warbal maxaa dhici doona, hebela qaadan doona, hebela xagga ka bixi doona, reer hebela inta miyeeli doona, kana waxyaabaha aan la garanaynin laga sameeyay maxuu ahaa saadaasha waxay ahayd waxyaabaha dadka gelinayay inay noqdaan. maanta alxamdulillah waxaan isku soo dhaweynay qaab ku meel gaara oo ku eg 2016. hogaamiyayaasha Soomaalida oo muddo 3 maalin halkan ku shirsanaa ayaa soo saaray bayaankan waxayse dadka Soomaaliyeed doorayaan sida ugu macquulsan ee uu ku dhaqan gali karo iyadoo waqtiga dawladda federaalka ee Soomaaliya hadda talada dalka uga harsan ay leegtahay wax 3 biloodan. Cabdinaasir Maxamed Cali, Home Cable TV, madaxtooyada Soomaaliya, Muqdisho.